muddo badan ciidanku qaybta wax dhex degan magaalada cabasho badanna way ka jirtay sidaas daraaddeed taliyaha qaybta wuxuuna weydiistay dhul in la siiyo ay dhistaan shalay ayaanu u wareejinay dhulkan kadlayn ugu wareejinay waa dhul 3 kiiloomitir isku wareega sidoo kale waxaan rabaa shacabka degmada Cadaado inay ciidamada la shaqeeyaan inay amniga ka qayb qaataan inay ciidamada soo dhaweeyaan diyaar u nahay inaan dawladda waxay doonaydo aanu bixinaan diyaar u nahay shacabkuna waxay u diyaar garoobeen dawladda inay soo dhaweeyaan dhulka iyo dalka iyo dadkana ay ku soo dhaweeyaan sidaa darteed dhulkaasaan ku wareejinay waanu ina siinay adinkuna inaad naga guddoontaan dawladda aad ugu shaqaysaan aad waardiyeysataan aad dhisataan laga bilaabo xilligan inaad dhisataan dhulku waa dhul dawladeed sidaasaan inay siinay sidaas kula wareega sidaa ku qaata weliba waa ina la dhisaynaa waa ina kala shaqaynaynaa waxaa saaka farxad weyn noo ah inaan ka soo qayb galno dhagaxdhigga xarunta loo dhagaxdhigayo qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waana la dhagax dhigay waana wax ka dhisi doonaa waana wax ka agaasimi doonaa sidii loo dhisi lahaa guddoonka degmada iyo xildhibaanada iyo dadweynaha Cadaado dhan maca guurtidana aad baan uga mahad celinaynaa sida ay u soo dhaweeyeen xarumaha ay siinayaan ciidamada qalabka sida oo dhan biliiska hore u siiyeen nabad sugidda hore u siiyeen kii xabsiga dhaxal laga dhagax dhigay oo goobjoog ahayn maantana qaybtii 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhagax dhigeedii waan kor taaganahay aad baan idinkugu hambalyeynaa meeshan aan taaganahay maanta waxaan dhagax dhigaynaa taliska qaybta 22aad insha Allahuna waa dhisaynaa annagoo kaashanayna shacabkanaga iyo ganacsatadanaga iyo dadweynahanaga iyo xoogganaga annagoo kaashanayna ayaan dhisanaynaa haddii Ilaahay yiraahdo dhulka waana la siiyey waana guddoonnay waa ku mahadsantihiin aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin